السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم وولاشين هلا ومركا ليدين soo noqotay maanta waxaa idin sidaa chicken curry ka waxa meeshan ku haysanaa soo jeedinba digaag ruuc xabad basal soo kala jaray chab sida sambuuska camal oo soo jarjaray waaye intaas hal xabo karoota qaando iyogeeda basal maxaa la yaanyo hal xabo kareemka baastada lagu sameeyo ama keega soo taqaaniinba kareem waaye sidoo kale waxaa haystaa meesha ku haystaa kabsar caleen basal jabki kala basasha ee tuun laba xabo ay bisbaas markaan aragna saan u sameeyno hadda saliida birtaawada ku soo shubtay saliid fiican ku shiilmi karo digaaga soo markaa digaaga waa shiileynaa qadar 5 daqiiqo waxaan rabaa inuu si fiican u shiilmo sababtoo ah digaaga dalaashadan ka soo bixiyay waxa waaye biyo leeyahay soo waa inuu shiilmo oo biyaha ka baxaa xoogaa waxaan lahaa kadibna waxaan ku darsan doonaa markuu shiilmo kadib waxaan ku darsan doonaa maxaan lahaa qaandeer oo cusba waxaan rabaa inuu si fiican u shiilmo gaduuto kadib cusbadaan ku darsan doonaa hadduu ilaahay idmo soo jeedin baada waxaan ku soo dari doonaa maxaan lahaa marka walaaqa uu shiilmo maasha Allah waaye uu shiilmo waa diyaar waxaan ku soo darsan doonaa hadduu ilaahay ku roon yahay maxaan lahaa hal qaando cusba si jirida ay uga gasho cusbada kadibna maxaan lahaa waa arkeena soo noqoto kada waxyar oo dhanna biyo yar ku jiray hada biyihii way ka dhamaadeen cusbadii ku daraasa u jeedinba waxaan rabaa cusbadii asaga markaas ku daray kadib waa walaaqo si fiican isku sii dhexgelina cusbada iyo digaaga inuu si fiican isku sii shiilmaan rabaa kadibna digaageena waa diyaar waxaan sameyn doonaa ilaahay ku roon yahay weel aan ku gudinaa marka saan marka u shiileys wuxuu ka hartaa ilaa 6 daqiiqo camal yaasaas u shiishid oo markii ugu horeysay ilaa hadda uu diyaar ku soo noqday marka hadda dibka waa ka qaada waa diyaar baaquligaan ku shubanaa baaquliga markaa ku shubto kadib waxaan sameyn doonaa hadduu ilaahay idmo birtaawada markii la dibka saaraa wax yar oo saliidaan ku darsanaa sababtoo ah saliida hadda waxa u yareynaa saliid hore doorada igu jirta ku soo dari doona soo marka basashii aan sida sambuuska basashiisa camal u soo jarjartay aan rabaa haddana inaan gooni u shiilo oo gaduudiyo marka basashii aad gaduudis waxa waaye waxay ka qayb qaadanaysaa kalarka raashinka basashii ka dhigatida ku xiranta hadaa madow ka dhigatid raashinka wuxuu ka noqonaa kafee hadaa laakiin si yar oo haruud camal u gaduudisid waxa waaye raashinkaaga si qurux badan ku soo baxa soo markaas waxay ku xiran tahay waxaad ku sameynaysid basasha marka basasha waxaan sugeynaa in yar inay gaduudato hadda waxaa ku soo darsaday labada xabad toonta soo tuntay kadibna basasha saan ku soo baxday yani saan waa sida rabi aniga kadibna waxaan ku darsanaa yani saas waxay ka qayb qaadataa raashinkaaga yellow u noqonaa jaalle dhadhan fiican way siinay yaanyada ku soo darsaa u jeedinba marka yaanyada hadeertu waa basan kartaa laakiin xabad yaanyo weyn haystay marka waxaan sameynaa haddana basasha iyo yaanyada rabaa inaan isku bisleeyo kadibna maxaan lahaa waa arkeena ayadana sii noqoto insha Allah 5 minutes camal dabka uga tagayna biyo ma ku daray sideedaas ahaanaysa soo isku soo laabanayna hadda oo jeedin yaanyada way bislaatay ayada kaligeed baa jajabtay maxaan lahaa hadda waxaan ku soo darsaday bisbaaski 3 xabo meesha isaarna hadartu waa iska dhaaf kartaa bisbaaska qof kasta waxay ku xiran tahay qofka haduu ilmo u joogo hadda yani bisbaas badan ma isticmaalayo digaag inuu ku soo darsaday laakiin bisbaaska hadda aan ku daray bisbaas oo kuleel saayid ma aha soo digaag hadda ku soo daray oo jeedin waxa rabaa yaanyada iyo digaaga si fiican isku dhexgelina kadibna waxa rabaa inay isku shiilmato soo marka chicken curry
waaye qofba nooc u karsadaa. Ani marka noocan aan jeclahay waa Filipinian style. Haddii aad noocyo kale u samaysan kartaa. So qof kasta wuxuu ku xiran yahay tastiga uu jecel yahay. Hadda waxaan ku soo daraa yogurt-ka. Masha Allah raashinka wuxuu siyaa dhadhan aad macaan. Kadibna waxaan sameynaynaa yogurt-ka ku walaaqa. Yogurt-kan waa isdhexgelinaa. Kadibna xoogaa yar waxay subin doonaa si fiican markaas isku dhex walaaqna kadib waxaan rabaa 2 minutes 3 minutes inuu yogurt-ki iyo yaanyada iyo digaaggi isdhex galaan oo si masha Allah ku soo baxan markaas ku soo laabanayna arkayna haddana waa kana saan ku soo baxay masha Allah waxaan ku darsaday qaando yar oo haruuda qaando yar oo xawaash dhudhub shiidan qaando yar basbaas buda ah iyo qaando yar maraq digaaga daartid dhanaanka saartid adiga ku xirantaa dhadhankaaga aan maraq digaaga waa ku yareeyay sababtoo ah marka hore waxaan isticmaalay cusbo yar soo hadda qaando weyn ka dhigo xoogaa dhanaanka igu badanayo soo hadda waa ujeediin digaageeni saan ku soo baxay masha Allah hadda waxaan ku soo darsanaynaa karootada hore ma looga daro sababtoo ah way ka bislaanay haddii bislaatana waxaa waaye يعني القبض ما يالناس داش نقناس marka karootada iyo waxa rabaa digaaga inuu isla ekaado rabaa yani isku si u soo baxana koos karootada hore u bislaata marka waxa sameynaynaa soo jeedinba digaaga biyo yar aan ku soo darsaday xogaa waa daboola 5 minutes or 7 minutes meelaas kadibna hadda waxaan sameynaa 7 minutes kadib waa kana saan ku soo baxay way isku shiilantay digaaga iyo karootada iyo khudaartii oo dhan masha Allah tabarakallah lama qiyaas karo nooc uu yahay marka waxaan sameysanaa markaan kadib waxaan ku soo darsanaa barbarooniga waxaa ugu daray wax kale maaha xoogaa wuxuu iga jibinaa carafta haruuda sababtoo haruudu waa strong aad u adagtahay yani urkeeda soo sidoo kale basalaan ku soo daraa waxaan rabaa basashaas iyo barbaroonigaas inaan xoogaa isku bisleeyo sababtoo barbarooniga aad u carfaa sabada ognahayba adoora caraf badan oo cajiiban uu leeyahay raashinka uu ku darsan yahay raashinkuusan lagu darin ogtiin difference u dhaxeeyo Soomaa soo marka hadda waxaan ku soo darsaday kabsar caleenta rabaa xoogaa inaan uhuuriyo ayadana kadibna waxaan sameyn doonaa waxa u haray waa creamkii iyo oo aan kadaal yani markii ugu dambayso oo aan ka diji rabo creamka aan ku daraayo iyo ilaahay dukuuroon yahay black pepper maxaa la dhahaa filfil madow soo hadda waa diyaar waxaan siinaa 2 minutes kadib arkayna si noqoto hadda ujeediin 2 minutes soo dhamaatay creamkii hadda ku soo darsaday creamka waxa waaye asaga marka hore waa xoogaa adeegaya laakiin marka dib u arko xoogaa wuu jilcaa waa ujeediin waxaan rabaa inaan khudaarta dhex geliyo kadibna aan siiyo 2 minutes asagana sababtoo ah creamka dab badan ma qaado marka hadda waa ujeediin wuu shiilmay waxaan ku soo darsaday filfil madow filfishana waa qof kasta iyo choice-kiisa aniga waxa waaye my favorite-kaygu waaye filfisha marka maxaan lahaa aadan u jecelahay marka waxaan sameynaysiin ujeediin si isku dhex gashay maxaan lahaa creamka dibka ma lagu badiyo haddii kale wuu kaa qalalaa marka tastigii oo dhan u luminaa marka waxaa la rabaa intuu sidan yahay in laga dejiyo dibka yani 2 minutes kaliya la tuso hadda creamkii oo ujeediin waa diyaar waa arkayna hadda suu ku soo baxo yani digaagii masha Allah tabarakallah chicken curry qurux badan fudud kaal iska arag waay marka masha Allah aan wada aragna suu ku soo baxay waa kana saan ku soo baxay chicken curry-gi walaal adna isku day asxaabtan uga faa'iiday fadlan haddaa ka hesha like dheh commentiga hoos noogu reeb share dheh subscribe kana siiya assalaamu calaykum